كورونا وفيروس هلس oo aad u faafa. badbaadi naftaada, qoyskaaga, deriskaaga, saaxiibadaada iyo bulshada oo idin. fayraska corona waa mid aad u faafa oo adduunka oo dhan ku faafay. faafintiisu waxay ku socotaa xawli aad u sarreeya oo aan hore loo arag. muddo ka yar 9 cisho ayuu adduunka oo dhan ku faafay. ha fududaysan cudurka, qof kasta naftiisa mas'uuliyad ayaa ka saaran. inaad naftaada haligtana waa dembi. waa dhab waa jira cudurka muslim iyo dadaan muslim ahaynba wuu ku dhacay. fadlan ha tegin kulamada iyo goobaha ay dadku ku badan yihiin haddii aysan jirin tan ku qasbaysa. qof kasta ee bukaan socod u ah cudurrada daciifiya difaaca jirka waa in uu qaataa feejignaan gaar ah. ogow, bukaan socodku waa u nugul yahay qaadista cudurka. fadlan haddii aad isku aragto calaamadaha soo socda oo kala ah qandho iyo qufac markaa qalalan ama ay la xiriirto naqaska oo kugu dhagaaya ama naqaska oo ku dhibaya, waxaad la xiriirtaa goobta caafimaadka ee loogu talagalay oo nambarkeedu yahay 449. feejignow, cudurku dadka uma kala saaro darajo iyo diin iyo degaan. qof walba khatar ugu jira waana ku dhici karaa. cudurkan kuma haki karno keliya inaan ka cabsanno ama inaan inkirno midkoodna. waxaan uga hortagi karnaa in aan raacno talooyinka khubarada iyo howlwadeennada wasaaradda caafimaadka. fadlan ha taaban qof leh calaamadihii cudurka, hana takoorin, laakiin si taxaddar leh u caawi. qof kasta oo naga mid ah mas-uuliyad ayaa ka saaran ka hortagga faafista cudurkan. qur-aanku wuxuu leeyahay khuduu xidrakum, digtoonidiinna qaata, ilaahayna tala saarta. ilaahay ha inaga ilaaliyo cudurka. waa cudur saas khatar ah, hala feejignaado.